السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ولكن داوديال كسر وهذا برنامج برامج عيارها تي في دولة جبلان وعول عبد الله اللباقي دام كبلعابه waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa muddada aan ku guda jirno ciyaarihii dhacay tartanka xiisaha badan ee dabcan horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaan isdul taagi doonaa kulmadii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan iyo sidoo kale wararka xanta ee suuqa ku jira Virgil van Dijk laga yaabaa inuu soo tagay nadiga kubadda cagta Liverpool Mohamed Salah iyo Alexander Arnold ayaa iyaguna wadada haya sidoo kale ciyaartoy kale ayaa jira ciyaaryahanka Odegaard oo rikood cajiib dhigayna barnaamijka aan ku soo qaadan doonaa qodobaas iyo kuwa kale aan ku qada dhigi doonaa barnaamijka garoomada ciyaaraha ee TV-ga dowladda Jubbaland ku soo dhawaada mar kale barnaamijka haddaba aan ku bilaabay barnaamijka garoomada ciyaarihii dhacay ee toddobaadkan kuwooda ugu xiisaha badnaa haddii aan isdul taago kulanka ugu horeeya ee isdul taagi doono wuxuu noqon doonaa kulankii u dhexeeyay kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo naadiga kubadda cagta Arsenal kulan ka tirsanaa tartan adag oo u dhexeeya labada naadi ee ka dhisan magaalada London labada naadi Arsenal iyo Chelsea ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan oo kamid ah ciyaarihii looga bartay bilowgii ugu horeeyay ee ciyaarta ayaa natiijadu mid u muuqatay in labada kooxood aysan guulo waaweyn la hooyan karin kulankan maadaama uu kamid ahaa kulamadii ugu adkaa ee sida weyn isha loogu hayay labada naadi ayaa ciyaarta la soo shartagay shax aad u adkeyd oo ay ku doonayeen ugu yaraan in natiijooyin kala duwan kooxaha kala yimaadaan Arsenal iyo Chelsea oo kamid ah kooxaha waaweyn ee horyaalka dalka England ayaa ku kala jira kaalimaha labaad iyo afraad naadiga Arsenal ayaa ciyaartay 29 kulan 58 dhibcood ayay leedahay sidoo kale Chelsea ayaa 29 dhibcood leh ayaa ciyaartay 29 kulan 48 dhibcood ayay leedahay waxaan labadan kooxood ay muujinayaan sida ay ugu dadaalayaan in ay natiijooyin waaweyn kala yimaadaan tartamada ay ciyaarayaan kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 6 kulan ugu dambeysay ciyaartay waxa ay guul gaadhay laba kamid ah halka saddex kalena ay barbara la kulantay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa u muuqata mid qorsheynaysa in ugu yaraan ay guulo dahabi ah ka gaadho kulamada ay ciyaarayso qaar kamid ah kulamada ay taakooyinka la kulantay waxaa kamid ah kulanka ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Nottingham Forest kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Manchester United oo la ciyaartay mid kamid ah kulamadaas sidoo kale Manchester ay la gashay barbarada labaad kulamadan ay ciyaartay kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u muuqanaya kuwo natiijo ahaan wanaagsan marka loo eego qaab ciyaareedkeeda bilowga kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 4 shoot oo target ah ku tuurtay goolka naadiga Chelsea sidoo kale dhigeeda kooxda Chelsea ayaa 2 shoot oo kaliya ku tuurtay naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa 6 shoot oo aan goolka ku beegnayn tuurtay sidoo kalena 3 kale ay tuurtay naadiga Chelsea halkaas ayna ka muuqata dadaalada ay labada kooxood kala sameeyeen waxaana inta badan shudadkaasi ay ahaayeen kuwa labada dhinac ka imanayay goolayaha naadiga ayaa bloogariya ama banaanka u saaray wax ku badan 2 kubadood waa goolayaha Arsenal halka goolayaha naadiga Chelsea isna uu 3 saaray si lamida sidaas waxa uu kulankan ahaa mid kamid ah kulamadii ugu adkaa ciyaartoyda gebi ahaan ayaa muujinayay dadaalka iyo harjadka ay ugu jiraan in dhibcahan iyagu ay qaataan dhamaystirka positionka ayaa kala ahaa 59 iyo 41 oo Chelsea ayaa ku gacan sareysay kubadaha garbdhaafka ee garsooruhu uu qabtay waxa lagu sheegay 2-1 oo Arsenal ayaa 2 kamid ah gashay kubadaha loo yaqaano khaladaadka ciyaartoyda ka dhex yimaada ama foulka 13 kamid ah Chelsea gashay halka 10 kalena ay Arsenal gashay 6 kaar isku darka wadarta guud ee kaararka digniinta ayaa garoonka laga bixiyay waxaana 6daas kaar 3 kamid ah qaatay naadiga kubadda cagta ee Chelsea halka 3na Arsenal ay qaadatay inta marka laga soo tago goolayaha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 2 kubadood si wanaagsan u safgariyay halka 2 kalena dabcan hawada laga mariyay 4 kale oo sidaas la mid ah goolayaha naadiga Chelsea ayaa safgareeyay si guud kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u muuqanaysay in kulankan ay natiijo ahaan aad u wanaagsan marka loo eego qaab ciyaareedka ay kooxdu soo bandhigtay halka gool ee madiga waxa u dhaliyay goolka ciyaaryahanka lagu magacaabo Michael Merino oo lambarka 23aad qaba waxaana goolka caawintiisa looga mahad celinayaa Odegaard oo dabcan khadka dhexe mas'uuliyad weyn iska saaray waxaana ay naadigu u diyaar garoobaysaa in ugu yaraan ay sii wadato guulaha ay ka gaarayso kooxaha dhigeeda
Arsenal ayaana u muuqatay mid sanadkan dagaal adag ugu jirta inay ugu yaraan u soo baxdo afarta boos ee ugu horeysa haddii aysan hanan karin horyaalka wadanka England oo dabcan haatan ay kaalinta labaad kaga jirto si la mid ah kooxaha kubadda cagta ee Fulham iyo Tottenham ayaa wada ciyaaray mid ka mid ah kulamada horyaalka Premier League wadanka England labada kooxood ee soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan oo u qalmay natiijo ahaan in kulankan uu ahaado mid ka mid ah kulamada waaweyn Arsenal araada Tottenham waxay kulankan la soo shartagtay shax lama filaana inkastoo kulanka ay guuldarro la kulantay taas oo ku noqotay filan waa iyo fajac tagaraashii soo xaadiray labada gool ee laga dhaliyay naadiga Tottenham oo ah khalaad kala duwan oo ciyaartoyda ka yimid waxa kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Sissoko iyo Munizo oo labaduba ka tirsan ciyaartoyda naadiga labadan ciyaaryahan ayaana bandhig wanaagsan bilowgii kulanka la bilowday waxayna tan u muuqatay in naadigan ay dadaalka ugu weyn ee muujinayso ay natiijo ahaan ku keensatay taas oo markii dambe waji kale u yeeshay in ay naadiga Tottenham ugu yaraan harjil la galaan in labada gool ay raadiyaan shantii kulan ugu dambeysay labada naadi Tottenham ayaa hal kulan oo kaliya adkaatay halka hal kulanna ay barbaro gashay waana sababta keentay inay Fulham sahansato oo ay ugu yaraan kulankan guul ka gaadho Fulham ayaa shantii kulan ugu dambeysay saddex ka mid ah guuleysatay halka laba ka mid ah ay guuldaro la kulantay waxaana ay tani muujinaysaa in sanadkan Tottenham la yaqaan aysan horyaalka si weyn uga dhex muuqanin labada naadi ayaana ku jira kaalimaha 14aad iyo kaalinta 8 Fulham ayaa ku jirta kaalinta 8 ee horyaalka wadanka England waxayna kooxdu dadaal weyn ugu jirtaa in ugu yaraan ay kaalimaha afarta hore ku soo baxday waa naadiga Fulham Tottenham ayaa kaalinta 14aad ku jirta oo waxa ka sareeya kooxaha hormuud yihiin Manchester United iyo kuwa kale oo dhamaantood sanadka dhibaatooyin u gaar la dala dhacaya Tottenham ayaa sanadkan u muuqanaysa in dib u ceeliso macalinka naadiga taas oo ay sabab u noqonayso filan waaga naadiga ku dhacay ee kulamada bandhiga liita ay soo bandhigtay kulankan oo looga adkaaday 2-0 ayaa wax kasto ay sameeyeen natiijo ahaan u saamixi waayay in xataa barbaro ay ciyaarta ku soo dhameeyaan waxaana ay taasi keentay in Fulham ay qaadato dhibcii ay kulankan ay markaasi labada kooxood dhex yaalay taas oo ciyaarta natiijo ahaan ka dhigtay in guuldarro xanuun kulul ay la kulmaan naadiga kubadda cagta ee Tottenham oo garoonka naadiga Fulham marti ku ahayd kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ciyaartay mid ka mid ah kulamada horyaalka Premier League wadanka England oo ka tirsanaa kulamada ugu adag marka laga hadlayo City oo sanadkan aan tartanka si weyn ugu jirin laakiin ahayd mid ka mid ah kooxaha sanadii ugu dambeeyay si weyn u haysay horyaalka Premier League wadanka England ayaa bandhig wanaagsan looga bartay soo bandhigtay qaab ciyaareedka qaybtiisa dambe Bebe ayaa la dhibaatoonaya ciyaartoydiisa iyo sidoo kale falsafada ay ku soo shartageen marka gudaha garoonka la galo macallin Pep Guardiola ayaa u muuqanaya inuu waliba natiijo fiican oo aad u reeyay uusan kala iman ciyaartoyda naadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaa kulanka la kulantay baro 2-2 kuna la ciyaartay kooxda kubadda cagta Brighton labada gool ee naadiga kubadda cagta City mid kamid ah waxa waa gool kulaad oo penalty waxa uu leeyahay Haaland daqiiqadii 11aad ciyaarta daqiiqadii 39aadna waxa gool kala sii raacay ciyaaryahanka lagu magacaabo Marmush oo ka tirsan naadiga City halka ciyaaryahanka lagu magacaabo Ousmane iyo ciyaaryahanka Khuzanao ay labaduba laba gool u kala dhaliyeen walow goolkaasi ongool ah sidaas ay naadiga kubadda cagta Brighton ay kulankaasi barbaro ciyaarta ugu haysay ay taa ka u gelisay naadiga kubadda cagta ee lagu magacaabo Brighton waxaana ay Manchester City u diyaar garoobaysaa in ay ugu yaraan kulamada kale soo socdo ay guul gaadho si guud marka laga hadlayo ciyaarta natiijo ahaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa dadaalo badan oo ay sameysay u suura gali waayeen 7 kubadood ay goosha ku tuurtay halka dhigeeda 10 lagu tuuray waana laga fiicnaa kulankan positionka 40% waxa dhameystiray kooxda kubadda cagta ee Brighton halka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay 60% dhameystirtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa koorno iyadu heshay 9 kamid ah 9 koorno 4 kamid ay qaadatay oo iyada la siiyay 10 khalad ay labada dhinac wada rahan 20 ay galeen min 10 ayna kala qaateen yellow kaarka kooxda kubadda cagta ee City ayaa qaadatay 2 kaar oo digniina taasoo waji kale u yeeshay ciyaarta bandhigii ugu horeeyay labada naadiba kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa sanadkan laga yaabaa inaysan natiijooyinka liita oo ay keentay awgeed tartanka aysan si weyn kooxuhu uga sii cabsanin waxaana ay tani keenaysaa in ay kooxuhu u sii diyaargaroobaanba inay ugu yaraan la dagaalamaan naadiga kubadda cagta ee Manchester City
kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa la ciyaartay dhigeeda naadiga kubadda cagta ee Leicester City mid kamid ah kulamada horyaalka Premier League wadanka England. naadiga Manchester ayaana kulanka soo bandhigtay qaab ciyaareed wanaagsan oo dabcan kuwii aan looga baranin, waxaana ciyaartoydu ay dhamaantood muujinayeen sida ay ugu hamuun qabaan in kulankan ay gool ka gaaraan. waxaana ay sidaas si la mid ah ay soo bandhigtay bandhig wanaagsan oo gudaha garoonka laga wada dhiyan karay sida ay ciyaartoydu dadaalka u muujinayso. macalinka naadiga oo la dhibaatoonaya isfahan waaga ciyaartoyda iyo isaga ayaa markan u muuqanaya in uu xaalad degan dareemayo maadaama ay ciyaartoydu waqtigan dadaal badan bixinayaan. Manchester United ayaa kulankan guul ka gaadhay Leicester City ciyaar ku soo dhamaatay 3-0 oo natiijo ahaan u muuqatay in kulankaas uu dhinac u dhacay. kooxda kubadda cagta ee Manchester ayaa shantii kulan ugu dambeysay ciyaartay laba kalan oo kaliya adkaatay halka labana ay baro markaas iyadoo gashay hal kulanna ciyaartiidu waxay ku soo dhamaatay dabcan oo waa laga adkaaday naadiga Manchester halka Leicester City aysan wax kulan adkaanin shantii kulan ugu dambeysay. waa natiijo kale oo ciyaareed oo dabcan aan macquul ahayn marka laga hadlayo kubadda cagta in shan kulan oo xiriir shantaba laga badiyo waa natiijo aan aad loo sii sugaynin. Leicester City oo mar ahayd ku guuleystayaasha horyaalka Premier League wadanka England ayaa sanadkan la dhacaysa dhibaatooyin iyada u gaara kuwaas oo hareeyay oo dabcan saameyn ku yeeshay kooxda jiritaankeeda. kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa 3 gool oo kaliya goolka ku tuurtay kubad banaanka ay ka soo tuurtay halka laba kaliya ay ahaayeen kuwa kormaray. kubadaha goolayaha si baloogareeyay ama goolayaha Leicester waa 6 gool taasoo muujinaysa duulaanka culus ee weerarka lagu soo qaaday. positionka boqolkiiba 54 ayaa dhameystirtay Leicester City halka Manchester 46 iyaduna dhameystirtay. sidaas marka looga soo gudbo kulankaasi naadiga Manchester ayaa wali ku soo laaban wadada guusha waxay labada naadi ku jiraan dabcan marka kaalin ahaan la eego kaalimaha 13aad iyo kaalimaha 19aad. Leicester City sanadkan looga cabsi qabay inay u dhacdo horyaalka heerka labaad maadaama ay kooxuhu ku dagaalamayaan ugu yaraan natiijooyin waaweyn ay kala yimaadaan ciyaaraha ay ciyaarayaan. kulanka Leicester inta hadaan uga soo tago bal in keena horyaalka Premier La Liga wadanka Spain ay ka dhaceen kulamo xiiso leh oo aad u adkaa. aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la ciyaartay mid kamid ah kooxaha horyaalka wadanka Spain si gaar ah naadiga Villarreal. ciyaarta ayaa ahayd mid kamid ah kuwii ugu adkaa ay kooxaha horyaalka wadanka Spain ciyaaraan marka loo eego bandhiga ay soo bandhigayeen labada naadi. kooxda kubadda cagta ee Villarreal ayaa kulankan soo bandhigtay bilowgiisa ugu horeeyay duulaan adag oo ay kooxdu ku doonaysay in ugu yaraan natiijada ciyaarta ay wax badan uga bedesho. arrintaas ayaana si weyn ugu hirgelinay naadiga kubadda cagta Villarreal maadaama ay kooxda kubadda cagta Real Madrid ka mid tahay kooxaha ugu waaweyn marka laga hadlayo kubadda cagta qaaradda Yurub. sigud labada kooxood ayaa ku kala jira kaalinta labaad iyo kaalinta shanaad waxaana u dhaxeeya Atletico Madrid iyo Atletico Club. shantii kulan ee ugu dambeysay ay ciyaareen labadan kooxood ayaa kooxda kubadda cagta Villarreal laba kamid laga adkaaday midna barra ay gashay halka laba kalena ay kooxdu adkaatay. Real Madrid shantii kulan ugu dambeysay hal kulan oo kaliya laga adkaaday si guud marka laga soo tagay intaas haddana eego kubadaha goosha la beegsaday 10 kamid ah kubadihii la tuuray Villarreal ayaa goolka la beegstay halka 5 gool oo 5 kubad oo kamid ah ay la beegstay shantii laba kamidna waa ay dhalisay naadiga kubadda cagta Real Madrid. dabcan sida weerarka uu qiimaha u leeyahay ayaa halkan iyadana muujinaysa iyo sida looga soo shaqeeyay fikir ahaan intaba. kubadaha banaanka la mariyay waa 8 kubood ayaa naadiga Villarreal hawada sare macabsiisay. positionka 46% waxaa dhameystirtay naadiga Villarreal halka 54% ay dhameystirtay kooxda kubadda cagta Real Madrid. taasoo muujinaysa in position marka laga hadlayo kooxda kubadda cagta ee Villarrealna aysan si weyn uga soo dhex muuqan kulankan laakiin ay Real Madrid waayaha iyo waqtigu labadaba uu caawiyay taasoo iyadana dabcan natiijahan u wanaagsan kooxda ka dhisan galbeedka ka dhisan magaalada Madrid ee caasimadda wadanka Spain. وهذا اللي وحنا قد جبنا برامج كرامات عيارها تي في كدورة جبلان برامج كانوا عول عبد الله اللي بقيها هالكذا كلا سعود سينية صاحب الدعوة يعني واحد طبعا ولي أن أوضنا حكتي يشيكوين كي لحر عياره جودة طبعا دي سنة ما دعونا يسين كرامات كلا دعاي وحا كمدة طبعا أتلتيكو مدريد يلا عيارتين هذيك كوبادا عكتا لغما قعابو برشلونة
mid ka mid ah kulamadii ugu adkaa ee laga ciyaaray horyaalka wadanka Spain labadan kooxood oo ka dhaxeeyay xifaaltan aad u weyn ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan laba qaybtii hore ciyaarta ayaa u ekeed mid natiijo ahaan laga wanaagsan yahay Barcelona taasoo keentay in dadka qaarkood ay durbaab markaasi dhayalsadaan difaacyada naadiga kubadda cagta Barcelona ee khadka dhexe oo dabcan habeenkaas aysan isku xirnaan badan ka dhex muuqanin Atletico oo caan ku ah kubadaha loo yaqaano boobka ama kubadaha inta badan xoog ku dhisan ayaa markaas habeenkaas la soo shartagtay shax u muuqatay inay doonaysay in natiijada ciyaarta ay wax badan ka bedesho laakiin taas ayaan u hirgelin oo macalinka Hansi Flick oo Barca hogaaminaya oo dabcan nin khabiirna ah ayaa markaas ugu dambeyn natiijada ciyaarta u bedelay macallin Diego Simeone kadib markii uu sameeyay 3 bedel oo qaarkood dabcan ay ciyaarta wax ka bedeleen waxana kulankan lagu dhex arkay garoonka ciyaaraanka Torres oo weer ka ciyaara xidiga Roberto Lewandowski Rafinha iyo Yamal oo afartuba duulaanka ka qayb qaadanayaan waxaana uga sii horeeyay bashiin aan ciyaaraanka Dani Olmo oo duulaanka toos uga qayb qaadanayay waxaana macalinku u dareemay dabcan culays ah in naadigu ay diyaarsantahay inay difaaceeda xirato goolashan ay ilaashato sidaas awgeed ayuu barasharka ku sii kordhiyay si weerarka natiijada ciyaarta ay wax isaga bedelaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa jebisay derbiga adag ee Atletico Madrid oo macallin Diego Simeone uu dabcan dhabarka dambe ka taagan yahay waxay natiijada derbi duminta keentay inay qaadato 3 dhibcood iyo 4 gool natiijada taasoo googooda ku soo dhamaatay 4-2 oo ahayd natiijada kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay doonaysay si horyaalka wadanka Spain ay ugu guuleysato Barca oo sanadkan Champions League dabcan ilaashanaysa tartamo badan u tartamaysa ayaa horyaalka wadanka Spain kaalinta koobaad kaga jirta hadaba kulankan dhacdooyin waaweyn ayaa dabcan ka dhacay oo laga diiwaan galiyay intii ciyaar ahaan socotay maadaama uu ka mid ahaa kulamada ugu waaweynaa ee dabcan horyaalka ka dhaca kulankan Lamine Yamal ayaa loo taagay kaarka digniinta ciyaaraanka Alexandro Balde ayaa isagana loo taagay kaarka digniinta Atletico waxaa kaarkaas qaatay dabcan ciyaartoy lagu magacaabo Fernandes oo isagu markaas bedel ku soo gali doona ciyaaraanka Kunde ayaa isaguna sidoo kale kaarka digniinta loo taagay waxaana labada naadi ay si guud u soo bandhigeen qaab ciyaareedka wanaagsan ee filanwaaga oo dabcan labada naadiba natiijahan aad u soo bandhigeen marka laga hadlayo kubadda ciyaariyeen hadaba shantii kulan ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa hal kulan oo kaliya adkaatay waa natiijo weyn oo filan waa ku daawadayaasha iyo dadka ciyaaraha khubreeya dabcan ka faalooda maadaama ay naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid aysan natiijo inta sidaas u xun aysan suurtagal in la timaado kulanka Barca ayaana guulaha u sii kordhiyay oo dabcan guuldarooyinka culeyska ah tunka u sii saray Barcelona shantii kulan ugu dambeysay hal kulan oo kaliya ay barra gashay oo dabcan ay la kulantay taasoo dabcan natiijo kale oo iyadana u sii saamaxaysa in ugu yaraan ay kooxdu markaasi u sii diyaar garowdo in ay ciyaarahaasi noqdaan kuwa adag وهيك صاحبي waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkan Awil Cabdi Cabdullaahi barnaamijkan la socodsiinayay farsamadii kaamiradan waxa uga mahadcelinaya saaxiibada kala duwan ee ka shaqeynaya bal markana maxaa ka jira wararka ciyaaraha si guud marka loo hadlo maxaa cusub oo dabcan iyagu taagan way aan soo koobo ciyaarihi ugu waaweyn ama ugu xisaab badnaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Odegaard ayaa noqonaya ciyaartooyda rikoorka ka dhigay kooxda kubadda cagta Arsenal kabtanka naadiga Arsenal ayaana markaas rikoor cajiib ka sameeyay kulankii ugu dambeeyay ay kooxdiisa la ciyaaraysay naadiga Chelsea caawinta quruxda badan ee kulankaas ayaana keentay in 3 dhibcood ay qaataan ciyaartooyda naadiga kubadda cagta ee Arsenal Odegaard ayaana kamid ah ciyaartooyda ugu mustaqbalka wanaagsan marka laga hadlayo dhanka kubadda cagta waxaana ciyaaryahankan la tartamaya Cesc Fabregas iyo kuwa kale oo hore u haystay masraxa caawinta ee naadiga Arsenal waxaana uu noqonayaa mid kale oo kamid ah ciyaartooyda oo loogu jeclaan doono naadiga ka dhisan galbeedka magaalada London ee Arsenal wararka idinka waxa kamid ah saaxiibayaal ciyaaryahanka Mohamed Salah ayaa laga yaabaa inuu gabi ahaanba isaga tago naadiga kubadda cagta ee Liverpool sidoo kale Virgil van Dijk iyo warar sheegaya inuu go'aan ka gaari doono mustaqbalka dhamaadka xilli ciyaareedkan kooxaha waaweyn ayaa durba ciyaaryahankaasi raadinaya oo ay kamid tahay Bayern Munich iyo naadiga Paris Saint-Germain oo ciyaaryahankaasi u danaynaysa waxaana xidigan kooxaha isha ay ku haya ay rabaan inay soo qaataan markuu ciyaaryahankaasi kooxda gabi ahaanba isaga tago kabtanka koowaad ee wadanka Holland iyo kooxda
kubadda cagta ee Liverpool ayaa isagu markaasi ka fikiraya mustaqbalkiisa meesha uu ku dhamaan lahaa maadaama uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan waqtiga naadiga kubadda cagta ee Liverpool. Alexander Arnold ayaa laga soo sheegaya warar kuwaas la mid ah inuu isaguna isaga tagi karo waana laakiin warar aan la hubin oo runtii aan sal iyo raad midna lahayn laakiin wax suuragal ah. sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa qorsheynaysa inay raayso bedelka Robert Lewandowski maadaama uu yahay ciyaaryahan daa si ugu yaraan ay u sii diyaariso ciyaaryahankaas oo ay rabto inuu bedel u noqdo Roberto Lewandowski. ciyaarihii dabcan intaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka garoomada ciyaaraha ee TV-ga dowladda Jubbaland barnaamijkan oo Cawil Cabdi Cabdullaahi Labaqeed ayaa la socodsiinayay saaxiibayaal intaan dib ugu kulmi doono barnaamijka xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.